shalay oo bishu ahayd 23 ayaa waxaan booqasho ku imi qaybta 43aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku taala maamul goboleedka Jubbaland magaalo madaxdiisa Kismaayo waxaan u imi in aan ciidamada halka ku sugan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa Jubbaland ay gaar u leedahay kuwa AMISOM hawsha ka dhaxaysa ay ku wada jiraan inaan u kuurgallo oo fiirino oo wax allaala wixii baahidooda iyo wada shaqayntooda aan u fiirino xoogaal u noqono nolosha ay ku nool yihiin iyo waxqabadkooda labadaba mana aha gobolkan iyo qaybtantii qura oo aan hadda u socday waxa safarkani wuxuu hordhac u yahay qaybaha kalena waa mari doonaa insha Allah biidillaahi kariim qaybta 6aad 12aad oo gobolada dhexe ah ee konton iyo afraad oo Puntland waa magacyadii qaybaha iyaga xoogga dalka Soomaaliyeed u lahaa maadaama aan xilka ku cusbahay oo muddo yar oo kooban joogay muddadii hore taliska iyo ciidamada agagaarka degan baan u kuurgalay ka bacdi waxay waajibku u yahay ciidamada kale ee deegaamada kala gedisan ee dalka ku nool oo gobolada dalka ku baahsan in aan iyana u tagno oo soo aragno nooc kasta yihiinba xaaladda ay ku sugan yihiin in tilmaamo laga bixiyo qaabka wada shaqaynta iyo qaabka wada hawlgalka iyo qaabka maamulku yahay in aan u sheegno meelihii aan saaka ku maray ilaa shalay waa la socotiin haddaan miidiyahatiin waxaan rajaynayaa maanta oo dhan waynu wada soconnay haddeerna waa sii wada soconaynaa iyadoo tifaftiran idinka idin taalla AMISOM maxaad ka wada hadashaan AMISOM waxaanu ka wada hadalnay waajibka naga dhaxeeya sidii aan u wada gudan lahayn baanu ka wada hadalnay dhanka mushaaraadka si fiican bay u socdaan dhammaan xoogga dalka Soomaaliyeed labadii bilood ay u dambeysay bishii hadda tagtay iyo bishii hadda oo la bilaabayo si fiican bay u socotaa mushaaraadku raalli baanu ka nahay dhammaan cidii naga taageertana mahadnaq baan u jeedinayaa dawladda kaalintay kaga aadan tahay iyo dawladaha kale ee naga kaalmeeya labadaba si wada jira oo siman bay u socdaan raallina waa ka nahay waxaan rajaynaynaa inay sidaa ku socoto mustaqbalka